الرحمن الرحيم daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa barnaamijkeeni Askar iyo America oo aanu idinka soo deynjinay waqooyiga America guud ahaan waliba gaar ahaan magaalada Minneapolis labada magaalo ee mataana St. Paul iyo Minneapolis barnaamijkeena waxaan ku soo qaadnaa runtii haddii noqon dhinaca siyaasadda caafimaadka waxbarashada iyo runtii cilmiga diinta oo halkaas aanan ka maqnayn iyadoo mararka qaar kood dad badan ay naga soo codsadaan meelo kala duwan ka jooga adduunka oo ay yiraahdaan Askar iyo America maxaa u diiday fanka Soomaaliyeed in aad ku soo casuuntid oo markaas aad runtii su'aalo weydiisid ama markaas aad weydiisid sida ay ku halabuureen haddii la wada loo ogolaado barnaamijyada dambe ayaan ku soo qaadan doonaa laakiin maanta barnaamijka waxa marti noogu ah runtii oo aan ku soo casuunay Professor Ahmed Samatar oo degan gobolka Minnesota 30 sanadoodna ka ahaa professor waqooyiga America 18 sano ugu dambeeyayna ka ahaa dean jaamacadda Macalester College haddana runtii aqoon-yahan runtii ka dhiga cilmiga dhaqaalaha iyo runtii economiga haddaba si kasta ahaatee Professor Ahmed Samatar marar badan aynu ku soo casuunay iyadoo dad badan oo naga soo kala wacay runtii Askar iyo America barnaamijkeena London Australia waqooyiga waliba gaar ahaan magaalada Hargeysa oo yiraahdo Professor Ahmed Samatar runtii nagu salaan Askarow Ahmed ku soo barnaamijkeena aad baad u mahadsantahay salaanta soo hagaajino waxa weeye cilmiga siyaasadda iyo dhaqaalaha waxa weeye international politics and economics international political economy dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunyadu sida isku dhaxgalaan weeye iyada wixii maartay dhibaatooyin aba wanaagay ka yimaado aad u maasanta amsanta waxa Ahmed maanta waxaan kugu soo casuunay maadaama la soo gaaray gabagabadii sanadkan 2013 oo waxyaalo badan la soo maray dawladii Soomaaliya isbedel ka dhaceen Jubaland oo hadda xamar aad aragtay ugu dambeysay heshiiskii lagu heshiiyo taasoo aad moodaynay soo ifbaxayso siyaasadii aad ku tilmaantay duwalay oo beelaha hawiye iyo beelaha daarood loo kala baxay heshiiskan Jubaland sidee baad u aragtaa anigu horta ma jecli inaan analysis-keegu had iyo jeer ay noqoto mid ka dhigata foundationska qabiilka waa gartay taa dad ajnabiya iyo in badan oo dadka mutacalimiinta Soomaalida ayaa arinta aad iyo aad ugu dheeraaday waa gartay aniga doodaydu waligiiba waxay ahayd ilaa maalintan ka soo baxay jaamacadda PhD-gan sameeyay buugii ugu horeeyay ilaa maanta ay ahayd gunta hoose waxa la isku hayaa qabiil ma gunta hoose waxa la isku hayaa powerka iyo sida powerka loo isticmaalayo iyo cidda faa'iidada ka helaysa powerkaas ya weeyi dooda ugu weyn qabiilku waxa weeyi wadadii loo marmarayay ka mid tahay laakiin gunta hoose waxa weeyi quwadda wixii kayda ee ummadda Soomaalidu ay leedahay amba wixii adduunyadu ay u keenayso dadka Soomaalida iyaa ka faa'iideeyay iyaa furfuraya iyaa maamulaya taas la isku haya halka qabiilku saa uu ka soo galaya waxa weey taariikhdii marka aad eegto ilaa 60kii ilaa maanta dawlad Soomaali u dhisan marka la sheego dee uma baahnaba khabiirnimo weynba uma baahno iyadaaba waa muraad arkaysa weeyii ya laba xaafadood inay dusha kaga fadhiyeen oo labada xaafadood iyaguna ku tartamaan iyaguna ay ku heshiyaan kulba sidii loo wadwadayo waa taariikhda dhigaso way cad oo caruurta garanaysa taa maanta soo aad garanaysa kuwa kalena inay kala daadsan yihiin oo aanay fahmin ya sida arinta jawaabteeda loo keeno oo loo ballaadhiyo dee in xukunka ummadda Soomaalida la wadaago ummadda kale Soomaaliyeed labada xaafadood ahayna wali may fahmin kartideedina lama iman halka marka waxa weeye halka ay dhibaatadu taalo warta aad ma santay gudoomiyaha baarlamaanka waa kii Baydhabo tagay maalin dhaweyd wuxuu ku dhawaaqay in 6 gobol bay loo sameeynayo waxa taa Jubaland ku jirto ka bacdina xamar waa tan oo la keenayo hadda maanta waxa uu leeyahay Soomaali waa inay heshiisaa Soomaali midowda prime ministerkii waa kan la Jubaland waan taageeray laakiin si dadka qaar waxay leeyihiin waxa bedeshay Ethiopia ayaa dadkan bedeshay saamaan intee laag bay kula tahay Moosa dadkan kulay Ethiopia waa wadan weyn oo maanta Soomaali marka loo qiyaaso quwadda la isku miisaamo de waa wadan quwadiisu ay aad iyo aad u weyntahay marka Soomaali loo qiyaaso maanta Soomaali quwad ay leedahay ma jirto dawlad Soomaaliyeed oo quwad leeyahay ma jirto we haven't seen that soddon sanadood ma inaan arag marka kulbadii dawladda Ethiopia inay farta ku fiqdo sida hal la yeelo sidaas hagaagsan oo sidaas hagaagsan damba ugu jirta waana laga filayaa de waa dariska inaad adigu maxaan ku raayay domination ku sameeyso adigu noqoto ka talinay de wadan walba hamad caynkaas uu leeyahay soo adamaad gar oo xitaa Canada oo wadan dhaqaalihiisa iyo noloshiisu ay aad u sareyso
ilaa dhowr iyo 30 milyan oo qof ay ku nool yihiin haddana had iyo jeer waxa Washington iyo Mareykan ka soo baxa way iska maxaan ku ilaahay aad bay iskaga ilaaliyaan oo ay farta ugu hayaan waana halka ugu horeysay ka fikiraan markay tala qaadanayaan sidee buu Mareykanku u qaadan doonaa arrinta hadii talada gaarto Mexico 100 milyan oo qof baa ku nool waa wadan weyn haddana marka Mareykan loo eego waa aad iyo aad buu daciif u yahay dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa iyo ciidamadiisa wixii soo dhamay marka Mareykan sidaas ayuu u noqday wadanka caynkaas Ethiopia marka wadan 80 milyan ay ku nool yihiin iyo in ka badan quwadda uu leeyahay marka loo eego Soomaaliya 10 milyan oo waliba kala daadsan oo waxba hayn oo cayroobay Ethiopia marka kolba inay farta u fiiqdo way suurtoobi karaysaa marka inay ciidamadii lagu daafacay leh jeebkoogu aanu ahayn ka xukumaya maxaan ku lahaay maskaxdooda iyo hungurigeegu waa maskaxdooda xukumay anu baarlamaanka waxaan uga tagay way jiraan dad casiisiin oo baarlamaanka ku bartay amba koonfur ka yimid amba qaarkood ay ka yimaadeen waqooyi waan arkay laakiin inta badan dan Soomaaliyeed oo laga hadlayo anigu maxaan ku lahaay kuma arag dayma kana waadiga sheegayay waxa loo yimid oo meeshan loo soo galay in kolba wixii yar ay yimaada sida loo diiranayo loo qaadanayo maxaan ku rahay looga shaqeeyo qof walba ama intii inay wada socotaaba amba isku xaafadaysan amba asxaabnimo si kale isku raacaysa ay ka shaqeeyaan wixii meesha kolba roobka yar ee daayina cagta mariyaan oo ay ka qaataan Soomaaliga ay noqon dan Soomaaliyeed meel lagaga hadlaya aniga iimay muuqan waxaan uga tagayna taas ka mid geesinimo Xasan Sheekh iyo Saacid iyo dawladda ay dhisaan lagu horjoogsado oo lala xisaabtamo taana anigu ma arkin soo damaad kan ra'iisul baarlamaankana Dr. Jawaarina aad iyo aad buu noo qalbi jabiyay oo dadka qaarkii waxay u haysan anigu aan kamid ahay muthaqafa oo weyn oo maxaan ku rahay waqtigiisina soo qaatay oo maanta experience halkii ugu weyn ay jooga inuu istaago oo uu noqdo qof ummadda Soomaalida maxaan ku rahay ilaaliyo danteeda guud dawladana la xisaabtama had iyo jeer isagoo baarlamaankiina wada ayaa la filay taana anigu ma arkayo soo damaad garan marka khasaarihii baarlamaanku waxa weeye baarlamaan aan karti lahayn baarlamaan aan daacad ahayn baarlamaan qof walba dantiisa yar raadsanayo marka dambana Xasan Sheekh iyo Saacid waxoogaa yar loo dawladuhu ay keenaan iyaguna hoos dhiganaya gacanta inteeda badan saasay waqti aad baad maasata iyadoo waqtigan uu nagu yaryahay intaynan gobolada waqooyi u gudbeen hadaynu Puntland ku hakano waa kuwa isku dayayna asxaab sameeyaan xisbiyo laakiin uu suurtoobi weysay haddana lagu celiyay systemkoodii iyo 4.5 iyo baarlamaankii sidii lagu celiyay ma kula tahay moosinay doorashooyinkooda January 8 in doorashooyin ka dhacayaan haddii aan beerta dhulka marka hore la qodin oo maxaan ku rahay si wanaagsan ciidda aan loo sii diyaarin shinidaad ku shubtaa khasaaraheegu wuu aad buu badanaya oo ma soo baxayso si wanaagsan dimuqraadinimada iyo doorashada loo gelayo dadka in maxaan ku rahay la soo saaro xukunka qabanayaan waxay isla beerto kale waa in dhulka la falaayo la hagaajiyaa marka hore oo diyaar laga dhiga anu inta yare warka aan ka hayo Puntland horta dadka Puntland ka yimaada ee wadanka qaybtaas degan taariikhda waxay ku leeyihiin magac weyn oo Soomaali soo dhis iyo shaqadeeda iyo horumarkeega iyo qarankeega taariikh aad iyo aad u magac weyn bay dadkaas ku leeyihiin oo dhaxalkooga kamid oo dhaxalka dadka Soomaaliyeedna ay leeyihiin laakiin maanta dambaad moodaa inay xagal daaceen soo damaad gar oo in ay intan ka sii maxaan ku rahay horumarkoogu aw ka sii weynaada ayaa la filay horumarka ugu weyn waxa weeye siyaasad bisil oo la isla ogolaaday oo doorashooyinka sida caadiga ah loo galayo sida Somaliland oo kale ayaa la filay laakiin inay murugto oo sida u qaldanto sida warku nagu soo gaaray waa wax laga noqon nasiib darro weyn waqti aad maasata gabagabada barnaamijka waa tayn halkan ka wareysanay soo noqodkaagii Somaliland dad badanna way daawadeen aad baa Somaliland looga daawadaa dhulka waqooyiga garan maayo maybe lahjada ku jeclaadeen mar malaynaya waxa dadku qaar ay leeyihiin Axmed Somaliland wuxuu ugu maqan yahay inuu raadiyo Somaliland inay wadan noqoto oo istaagto ayuu ugu maqan yahay qaarna waxay Professor Axmed waa uu tago wadan soo booqday waana soo noqday gobolkiisii Minnesota ku soo noqday iyo shaqadiisii wanaagsaneed ee dhinka ah ku soo noqday intaad ka soo maqnaan iyo intii wareysiga u dhaxaysay
maxaad u qabatay Somaliland baa malayso hadda aad kula wadaagaysaa Somaliland horta anigu Somaliland sidaan uga hadlo iyo kelmadahan isticmaala way ka duwan yihiin sidii aan uga hadli jiray intii aanan tagin anu kelmadahan isticmaalay marka waxa kamid ah ma yiraahdo Somaliland waa gobol Somaliland waa wadan wax imika dee sarif cusub oo keenana ma ahe taariikhda dhigaysa dee oo dee British Somaliland baa la oran jiray soo aad garmays maalintii 26 June ay waxay noqotay wadan gobonimo qaatay ay noqotay marka waa wadan oo gobolada kale ee wadanka jamhuuriyadda Soomaaliya laakiin waxa soo dhamaaday dawlad la wada yeeshaa soo dhamaatay waayo dee 50 sanadood dabadeed ya anigu intaasan Somaliland la naga joojiyo bal suga anay dicid dhageysanaysa xamar ma joogto dhageysanaysa ma joogto kolka waxa uu hayay safarka dhaqaaq in wixii la qaban karayo la qabo anigu amba wadanka gudihiisa aan wax kala qabto amba dibadda aan wax kala qabtay waxa noqonaya askari u heegan Somaliland baraaraheega iyo wanaageega iyo hor u socodkeega inaan ka shaqeeyo waqti professor Ahmed Samatar saad ogtahay waxa lagu jiraa electionkii ayaa lagu jiraa wiil Soomaaliyeed oo Cabdi Warsame la yiraahdo gobolka Minnesota ku guuleystay waxa jeclaa inaad tahniyad halkan aan uga dirno adigana nagala qayb qaadatay Cabdi Warsame anigu habeen baan arkay waan u tagay meel uu ka hadlayay oo dadku isku yimaadeen nin dhalinyaro laakiin aqal balaaran leh wax bartay England buu ku soo koray halkan mala 10 sanadood intaas uu joogay guusha oo helay in magaalada Minneapolis dawladeeda hoose oo kursi ku yeesho oo mathilo dadkii soo doortay degmada ku nool yahay magaalada soo doortay oo aan ahayn Soomaaliyeed ma aha Afrikaanka kalena ay ku jiraan iyo dad kale waa guul weyn bay u tahay isaga shakhsiyan waxay guul weyn u tahay dadka Soomaaliyeed ee Mareykan maanta soo degay iyo Minnesota iyagana guul bay u tahay in la bartay durba in sida wadankan loola noolaa ayay marxaati ka tahay waxay guul saddexaad u tahay dadka Mareykanka oo dhan iyo state-kan iyo magaalada Minneapolis iyagana inay arkaan marxaatigii dimuqraadinimadooda iyo deeqsinimadooda inay soo dhaweyso dad dhawaan wadanka soo degay oo la siiyo fursad ay kaga qayb galaan xukunka magaalada sida loo maamulayo waxay taasuna u tahay guul weyn dimuqraadinimada iyo dadnimada wadankan Mareykanka iyo xadaaradiisa sare ayay u tahay inaguna wali xaafad ayaynu ka hadlaynaa garana soo murugsan soo garmay final point waxa weeye Cabdi tahniyad weyn baan u diraya alla guusha hala wado waa albaabkii ugu horeeyay guulo badan oo kala dhici kara hadii aw shaqada barto sida loo wado oo xaafadii waxa aan ku soo noqon citizenship aad ka shaqeyso finally waxaan Cabdi ku leeyahay kuwa yareed soo koraya Cabdi ag jooga amba naga dambeeyaan ku leeyahay wadanka degan siyaasadda Soomaalidu ilaa maanta inteeda badan waxa lagu yaqaanaa siyaasadda waxa loo galaa si aad meel wax uga goosato ya oo waxa masaakiinta ay wada leedahay adigu iska indhatiraya intaad ka qaadan karto aad ka qaadato ayaa ilaa maanta calaamadeedu tahay siyaasadda Soomaaliya Mareykan siyaasadiisu iyo magaaladan degannahay waa opposite ka weeye taas waxa weeye siyaasaddu service dadka ku soo doortay iyo kuwa aan ku soo dooran oo aad ugu shaqeynayso in noloshooda hagaajiso xaqii shaqooyinka xaqii caafimaadka xaqii iskuulada xaqii nabadgelyada xaqii wadooyinka wax walba in la sii hagaajiyo service oo adigu aad wax geliso teenuna waxa weeye anu waxba gelin maaye laakiin intaan meesha galo waxaan ka soo qaadan karaa ka qaato inta kalena to hell with them soo hadamad labadaana inuu kala barto waa loo baahan yahay laakiin Cabdi waa guul weyn buu inoo keenay Allah la jiro anaguna waan ku faraxsanahay waa gartay professor Ahmed Samatar boqoshada nagu soo boqotay ayo